halkani waa xarunta Magtabada Gabiley National Library ee magaalada Gabiley. Xaruntani ayaa mid seel caalami ah loo nashqadeeyay isla markaasina ku cusub dalka. Waxa la filayaa in dhawaan xadhiga laga jari doono. Hirgelinta Gabiley National Library ayaa waxa iska kaashaday dawladda hoose magaalada Gabiley, dawladda dhexe, ganacsatada iyo bulshada. Waxa muddooyinkii u dambeysay bulshada maktabadani soo gaarsiinayeen deeqa buugaag ah oo ay ka qayb qaadanayaan maktabadani ballaaran. maanta waxa deeq buugaag iyo kombiyuutarro iskugu jira soo gaarsiiyay qoys ka mid ah qoysaska jaaliyada dalka Australia ee u dhashay gobolka Gabiley. waxaana deeqdani buugaagta ah kala wareegay agaasimaha Magtabada Gabiley National Library Mustafa Maxamed Xasan iyo mas'uuliyiin kale. waxaana goobjoog ka ahaa maayarka caasimadda magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi iyo murashax Xasan Dhuxul Laab Saalax iyo murashax Nimco Maxamed Cawaale. waxaana ugu horeyn hadalka qaatay qurux badan oo wadankii laga wado oo wanaagsan oo lagu farxo. waxaanu go'aan ku qaadanay inaanu qayb ka noqono horumarka oo wixii aan samayn karayno haba yaraadee aanu samayno. aniga iyo sharmaarke Maxamed Axmed ayaa hawshan galay iyo faamiliga intiisa kale. mu ahayn wax ka yimid ummad fara badan ama community badan. wuxuu ahaa un wax dad yar oo markaa wada jooga ay yiraahdeen saynu wax ugu qabanaa meeshan wanaag ka socdo. hawshu baanu galay. waxaan raadsanay si loo helaa buugaag, kombiyuutarro iyo shelfis loogu deeqo library-gan. arrinta raadintu runtii ma yahay mid dhib yar. inaad hesho wax bilaashood meel ka soo qaadato ood soo rarato ma sahlana. waa inaad raadisid connections, waa inaad tagtid from one place to another ood wareegtid. waanu soo wareegnay. ilaahay subxana wataala markii dambe wuxuu nagu guuleysiiyey organisation caawisa library-da adduunka oo u gudbisa waxay u baahan yihiin resource ama ha noqoto buugaag, ha noqoto kombiyuutarro. reer Gabiley ay qurba joogga ah ee la dareen noqday population-kooga ama dadkooga reer Gabiley kana qayb qaatay runtii library-ga inay keenaan buugaag iyo kombiyuutarro. barakaatu ugu horeyn dhammaantiinba waan ku soo dhaweynayaa maktabadda qaranka Gabiley. ku soo dhawaada baan leeyahay. mar labaad waxaan uga mahad celinayaa nimankii sida fiican uga soo shaqeeyay inay keenaan deeqdan buugta ah, kombiyuutarrada iyo shelfiska iskugu jira. sharmaake iyo jimcaalaba aad iyo aad baan uga mahad celinayaa runtii. dad aan ka filaynay bay ahaa runtii inay baaqayagii aan u dirnay ay ka soo jawaabi doonaan. sidoo kale waxaa hadalka qaatay murashax Xasan Dhuxul Laab Saalax iyo Nimco Maxamed Cawaale. waxaana yiraahdeen maanta library-ga quruxda badan leh Gabiley maanta cidii soo booqataba horta alxamdulillaah rabbil caalamiin waa meel aan ku faani karno. qof kastoo dhalinyarada uu soo fadhiisan karo, koobna uu ka cabi jiro, buugna ku akhrisan karo ayaynu leenahay maanta. Australia aad ka keenteen qaaradii ugu fogeed weeyaan. kullay qoyinka Amerika iyo ku nool Ingiriisku insha Allah way idinku dayanayaan. laakiin in degmadiisii iyo magaaladiisii hagaajinaya oo qurxinaya oo maskaxdii dadka korinaya oo buugaag soo qaadaya kullay uu ka duwan yahay qof kale oo wax kale keenaya. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray maayarka caasimadda magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi. waxaana uu yiri marka runtii aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa Jimcaale. xildhibaanada oo soo wakiilateen musharaxnimada si sharaf iyo qiimo leh baan uga gudoomanaa. ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa runtii inuu maalka iyo waqtigiina iyo maskaxda aad geliseen hawshaasi idinka abaal mariyo oo maalmaha khayrka leh runtii aad idin weydiinano. maktabaddan waxay ka mid tahay tacabka golihii deegaanka aan hogaaminayo uu ka tegi doono ayay ka mid tahay. mashaariicaha ugu waaweyn ee gobolkan ka fulay ayay ka mid tahay. waxyaalaha ugu waaweyn ee runtii aanu ka gol ahaan naga go'naa waxaa ka mid ah marka laga yimaado inay hirgaleen mashaariicahan iyo adeegyada lagu qaban doono bulshada aanu matalanno inaan dareensiino inaynu inagu wax qabsan karno. Khalid Maxamed Daahir, telefishinka Badda Cas, magaalada Gabiley.